إلهي سبحانه وتعالى وما تسكله لكن وحي مهم كتهي برنامج كان بالله وجسم وكل ما وحي أقول مهم سنة برنامج علماء وحي سوق عامين أو أي كانن نشران واحد دينهان أي كسر يسنتهان إن نشرحان أنت أقول مهم سنة أنا كلا وحوايو كابيتان هذا الكلام مركا هدي مركي هورا دغا سفي علو تاغايو فهم لها oo culimada hore qaybtay ka hadlayeen aan wada qaadanay barnaamijka inuu hirgalaan rajaynayna marka koowaad anigu waxaan leeyahay waxaan aad iyo aad ilaahay ka soo ugu mahadnaqaynaa culimada sababtoo tahay aaska diinta islaamka waa culimada maanta waxaa nasiib darro ah haddii la dhihi lahaa LWF baa dad u yeertay mase maanta maxamed ceede keer baa dad u yeertay meesha way buuxi lahayd laakiin dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ويري إنما يخشى الله من عباده العلماء وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس أنت أصلا بلو كغشة يرست إنه يرين علاس بينوت كنتي والله يعني مركب علماء اللي سؤال الله ينقارس بنجو صار بنا لكن مركب دهان وحنوبها هنا يبرينا نوع ماتان استرشال بنا صو عرنين نقط مركب أنا رد قال لي هل بتكلم عن إنك عصنية فضلا مركب علماء الدين يران وها إلهي سبحانه وتعالى دينتيسا كسابسن بينو ويرayaan diintan waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo abuuray aan qadarino muhiimada koowaadna aan siino markaan u soo noqdo mawduucan asaga ah arrimaha ay ka hadleen culimada waa cibaada iyo sunno waa wax laga hadlayo barsamaha maanta waxa munaasib ahaan lahayd barnaamijkan inay masaajidada ku qaban ha noqdo muslim masaajidada kala ha noqoto munaasabada waxaan leed baynaan ku qabanno masaajid xadiis sababtoo tahay arrinka laga hadlayo waa arrin diiniyan ah waxa laga hadlay ciqaab maba u baahnaba in la yiraahdo ruuxi arrinkan jabiyo saan ha la yeeli iyo askar ha loo yeerti iyo OCS ha loo baahdiyo looma baahno waxa lagu sheegayaa arrinkan asaga laga hadlayo waa arrin min ad-diin waa sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam haddii sunno lagu sheego la yiraahdo sunnadan saan iyo saan bay leedahay anaga masaxadana ku jirta nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu leeyahay haddii qofka uu soo nooleeyo sunnadayda mid ka mid ah waqtiga ummadda waliba ugu fasahaad doontaa waqtiga maanta la joogo wuxuu la mid leeyahay asagoo maxamed ceeli ajir qof shahiido kala ah arrinkan asaga maanta culimada ay soo celiyeen waa arrin noocaas oo kala ah ummadda maanta fasahaad meesha ugu dambeey joogta guurka wuxuu noqday shayga ugu qaalisan maanta aroosyada waxay noqdeen meesha hataa siyaasadaha lagu maleego lagaga tashado la iskugu faano oo la iskugu soo baxo nin walba wuxuu dhihi intaasoo madax baan maanta u yeertay arooskayga nin walba madaxoo imaado munaasabadiisa loogu talageli arooskii marka milyan iyo ka kor u tagay hadduu qaxootiga dhacdiis yahay iyo hadduu deegaanka hayba marka culimada waxaan leenahay arrinka aad keenteen waa dhibaatada ugu weyn ee maanta ummadda haysato diyaar baan u nahay inaan garab idinka siino laakiin arrinta ugu horeysa soo sheega walaalkan wiilna waan dhalnay gabarna waan dhalnay hadda sheekh maxamed ceede chiefka arrin muhiim buu noo sheegay hadduu gabadhiisa ku adkaan lahaa dadka guurkeeda wiilkii baabashii daba hogta asagana daba taagan nin walbana arrinka ayada way haystaa haddaad adig gabar kale aad dhashay walaalka maxamed ceede baa wiil dhalay asagana oo berri asagana wax dooni marka arrinkan asaga aan fikirkaa qaadanno yaanan ku talagelin inayna loo baahdo sheekhiile iyo sheekh xuseen iyo inay askar doonaan inay meelaha u wareegaan oo ay dad soo fiiriyaan arrinka waa arrin cibaado ah waa arrin diin ah waa waxaan u baahannahay intan meesha fadhida hadduu nin walba si daacad u qaato meeshan ayada way ka hergeli arrinka ayada waxaan kusoo gabagabaynayaa laba shay ani waxaan soo maray meesha la yidhaahdo Djibouti 2 bilood baan joogay waxaan arkay habeen walba nikaax baa dhaca masaajidada ka dhaca nikaax masaajidada cisho markii la tukado annaga maxamed masaajidan saxnayna waxa la dhigay xoogaa dhinaca iskugu durqa maanta nikaax baa jira caawo masaajidada baa iskugu imaanay kabtayada heed baa maxamed ceed maxaa la yiraahdaa nikaaxooda ay ku gashanayeen waa dhaqan aad iyo aad u muhiimsan waana dhaqan aan culimada ku baraarujinaya badalkii teendooyin iyo kadeed iyo la aadi lahaa nikaaxa in lagu hagaajiyo masaajidada lagu hagaajiyo waxaa kaloo soo marnay arrinka hadda culimada maanta ay wadaan waxay ugu qabsatay maxamed ceed Ethiopia magaalada la yiraahdo lafa ciise anoo joogno baa culimo imaadeen waxay dhaheen degme Hiblay way soo hergelisay degme Hiblay sana ku soo heshiday degmada ugu dambeysay waaye intan ay culimada maanta sheegayeen bay leeyimaadeen
waxay dhaheen waan ku soo heshinay degmadii ugu dambeysay waa ina dheentan arrinkan asaga waa inaan qaadanaa intii meesha joogtana way la qaadatay markaan weerarsanaan dhaana waraxan bay suurtagali waxay dhaheen waa meesha ugu dambeysay watan inta kale degmooyinka kale waa laga soo horgeli marka meeshanna way ka hergeli arrinka aan qaadano waxay ugu dambaysaa culimada waxaan leeyahay shayga muhiimka kan oo kale ah maalinkoo kuma dhammaan karo wuuna adag yahay carqalado fara badanna way ka hor imaan doonaan dad baa waa arrimaha arooska ganacsi ka dhigtaa oo wax ka raadiya dadka ayaga culeysaad fara badan bay keeni doonaan aniga waxaan dhihi lahaa wax alla wixii jimcooyinkan u soo horeysa 4 jimco isku soo xigto odil khudbada odil mawluucan ha laga dhigo waxaa kaloo la samayn karaa masaajidada odil hadduu suufi yahay hadduu tabliiq yahay hadduu xaramaan yahay magac raba loogu yeero culamada maadaama ku daawada joogtiin masaajid walba salaad subax duhur casr maqrib arrinkan ha laga soo jeediyo muhiimadda ay leedahay guurkoo la fududeeyo ha laga hadlo muhiimad ha la siiyo wixii ka dambeeya suuqa iskugu taga culamada joogtiin qarash idinkuma baxaayo makrofoonida qaata mar f taga mar e taga mar d taga arrinkan si fiican maxamed bulshada loo gaarsiiyo walaalahan maxamed aad maxaa la yidhahdaa baaruudi way joogaan idaacadda fadhiista faahfaahin dheeraada sii bixiya arrinkan markaasaan buu ku wargeli karaa annaga laakiin ka dowlad ahaan haddii xafiis uu yahay governor hadduu xafiis m b yahay haddii uu yahay ocs ka d c ga diyaar baan u nahay inaan ku garab istaagno arrinkan wax alla wixii uu ku mara dhalinayana diyaar baan u nahay waxaan weliba diyaar u nahay arrinkan inay dhagaxley ku ekaanin ifo ilaa iyo maxamed qaxootiyada kale deegaanada odil inay insha allahu tacaala arrinka ka suurta gashay marka waxaan soo dhawaynayaa insha allah d c ga oo barnaamijkan noo xiriira bana d c karib